السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القاليات وإني السلامي ميل كستاكل جوجتان سيتين يورم في عنتين أنو أسكفي عنا سيدوكالي إن هذا ما نكون تهمال وناكسن دي قلب كتاني قلب وناكسن mar walba waxay iga barateen inaan meeshiina kasoo gudbiyo ducooyinkaasi iyay anfacayaan innaga ayayna anfacayaan innaga ayaa darajo ku gaadhana innaga ayaa akhrideena maaragtay ay noo saxayaan innaga ay noo fiican yihiin mar walba ducooyinku waa darajooyin la gaadho yacni wax ka fiican ma jiraan ducooyinka wax ka wacan ma jiraan حتى ما سهل سد يعني واحد دعاء يعني دعاء معناه ذو دو يعني والله بالله وحكى في عن سهل سد وحول بوي كادوين الساعة وحول بوي كادوين الساعة مركا كنت عست إن شاء الله مركا درين تدولول التوشن كاغنو كوغو فرني هاي مسك حضاض إن عريرو in ciriiri uu ku hayo bal intaad fariisatid oo hoos fiirisid alla bari waxaad arki doontaa yacni ma jiran wax ka wacan ducooyinka markay musiibo ku haysato allah bari wax kastana weydiiso ducooyinku way fiican yihiin allah muxuu yiri adcuuni astajiibu lakum ibarya yani ka aqbale marka mar walba ducooyinku way fiican yihiin wayna wacan yihiin mar walba in ducooyinka loo cararo yacni markay wax dhacaanba inaad ducada u carartid aad iyo aad bay u fiican tahay adigay ku anfacaysaa wixii markaa kugu dhacay yacni markaas aad la murugsaneed ama aad la walwalsaneed xataa way maaragtay way suulayaan yacni way kaa tegayaan markaa fadhiisatid ilaahay barisid wixii ku hayaa u sheegatid dadaal baa bixisayaa markaas dadaal baad bixisay markaas soo oroday duco akhrisatay fadhiisatay ilaahay u sheegatay ilaahayna waa qafuurur raxiim waa kun fayakuun marnaba inama ilowsana marnaba ilaahayna oo gacmaha u taaganay gacmaha madayna soo celinayo oo wayna garab istaagaya marka ku dadaala asxaabtayda kuwa intay kaga xidhan iyo qof walba fiideo soo gaadhaba ducooyinka ku dadaala ducooyinku waa dawo ducooyinku waa wax walba ducooyinku waa nolosha maalintii oo dhan noloshaada waxaad ku kabtaa duco ku kab haddaadan duco ku kabin noloshaada ku kala socon mayso waxbaa kasii ahaanaya laakiin haddaad ducooyinka joogtaysid waxaa laga yaabaa waxyaalo badan oo aadan ogeyn inay ku hagaagaan kuwa badan oo kaa maqnaa inaa heshid marka ku dadaala insha allah mar walba waxaan ducooyinka u soo geliyaa oo ugu dadaala inaan soo geliyo ama inaa ii sheegay baraarujin yacni inaan baraarujiyo anin ahaanteeda nafteeda markaad duco soo geliyo ama aan soo dhigo waana soo qaybay yacni anayba ii tahayba faa'iido koow idinka laftigiina oo dhageysanaya oo inii soo gudbinaya faa'iido inii tahay inagoo dhan waxay noo tahay mustaqbal yacni ducooyinku waa furaheeni weeye marka ha lagu dadaalo mar walba duco akhrisatid waa mar walba masiibo ka badbaaday mar walba duco xifdisid oo sii sheergareysid midda kale asxaabta sii sheergareeya siina gaarsiiya haddaad duco aragtid ducada sii gaarsii waxay la mid tahay adigoo ajarkeeda leh bay la mid tahay markaa ducada sii sheergareeya wixii wacan oo dhanba waa la sheergareeyaa wixii xunna lama sheergareeya dadka waa laga qabtaa oo sharku ma fiicna inuu faafo laakiin waxyaalaha wacan waa lasii sheergareeyaa markaa sheergareeya ducooyinka insha allah maar walba waxay iga barateen duceyna inii sido inii soo gudbiyo marka maanta ducadeenu waa ducada markaad sii seexanaysid weeye markaad soo diyaar garowda habeenkii seexanaysid rabtid inaad seexatid ducadan akhriso
way ku anfacaysaa insha Allah bilkariim. Qof walba wuu iskaga baahan yahay loo dambi dhaafo, qof walbana wuu jecel yahay wixii wacan oo dhan. Marka Allah ayaa ku dambi dhaafaya, Allah ayaa naxariistiisa helaysaa. ducadana ku duceysay insha Allah bilkariim. waa ducada marka habeenkii seexanaysid ducadan akhriso, Allah wuu ku dambi dhaafaya insha Allah. qof aan dambi dhaaf aan jecleen ma jiro, qof walba wuu jecel yahay dambi dhaafka. ducadan akhriso habeenkii markaad sii seexanaysid, waxaadna tiraahdaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahul mulku walahul xamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi wabixamdi والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الدعاء المركز سيحنسد كدعيس الله وكو دم دافيا. qof walbana dambiyadiisa farabadnida ka farabatay batay wuu jecel yahay qof walba in loo dambi dhaafo. aan ku soo celiya mar labaad, waxaana tiraahaa laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahul mulku walahul xamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa xawla walaa quwwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. subxaana allahi wabixamdihi walxamdu lilaahi ilaaha ila allah wallahu akbar. ducadan akhriso marka aad sii seexanaysid, waa ducada ku anfacaysa oo insha Allah bilkariim Allahna wuu ka aqbali doonaa. yacni qofka markuu sii seexanayo inuu dambi dhaaf Ilaahay sii weydiisto, naxariisu Ilaahay sii weydiisto, Ilaahay uu tala saarto, quwadiisa uu tala saarto. wax ka wacan miyaa jirta ama wax ka fiican miyaa jirta? yacni meeshaad waxyaalo kale kaga sii seexan lahayd ama ay sheegayeen wax kale aad sii sameyn lahayd, ducadana la soo kala baxaysaa kabacdina waad ku celinaysaa. ducadan badanaa way aad bay u fududahay ma adka. marka insha Allah caruurtiina bara duco walba baratid ama naftaada u baratid ama u baratid inay adiga ku anfacayso. haddaad ilmo leedahay ilmahaagana waa la baraa. waxyaalaha ugu fiican bay ka mid tahay in ilmaha la baro ducooyinka siduu markuu weynaado u dhaho hooyada bay soo bartay ama aabahay bay soo baray. hadba kii waalidka kii quraan yaqaana ama kii duco yaqaana, waxaa fiican ilmahana in looga sii faa'iideeyo. wax ugu fiican in loo faa'iideeyo ilmaha ayaa jira. marka insha Allah idinkuna ka faa'iideysta. ducooyinku dhammaantood waxay ka turjumayaan waa faa'iido. waxa weeye wax walba ducooyinku ka turjumayaan, yani waa darajada koobaad, wax walbana way yihiin. inta ka kulmi doono cashar kale oo qurux badan iyo mar walba ducooyin oo qurux badan inii soo gudbiyo. waxaan idinka codsanaynaa ay share gareysiin, subscribe-na ay saartin. insha Allah intaan ka kulmi doono tani in kale cashar kale oo qurux badan ama duco kale oo qurux badan. waxaan kaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.